بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kormeer ku soo marnay 17 degmo ee gobolka Banaadir sidaad arkaysaan wacyigelin baaxad weyn leh ayaa ka socdo oo bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir lagu wacyigelinayo allaha naga haya cudurka coronavirus wacyigelintaaseti oo isla kaashanaya kormeerka ay wada sameynayaan wasaaradda diinta iyo qaafta iyo maamulka gobolka Banaadir oo isla wada jiro waxaan aad rabaa inaan ugu mahadceliyo maamulka degmooyinka gobolka Banaadir 17 degmo iyo bulshooyinka ku nool caasimadda gobolka Banaadir siday ugu qayb qaadanayaan wacyigelinta ka socoto magaalada oo dhan caasimadda oo dhan bulshada siday ugu feejigan yihiin inay ka shaqeeyaan cudurkaaseti sida looga hortagi lahaa sidaad ogtihiin cudurkaas wuxuu leeyahay ka hortag wuxuu leeyahay wacyigelin in laga faa'iideystay u baahan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waxa u mahadcelinaa bulshada waxaan rabaa inay wacyigelinta sida loo bixiyay u qaataan sababtoo ah cudurkaaneeti sida loo sheegay waa in la ilaaliyaa nadaafadda waa in la ilaaliyaa gacmo dhaqidda waa in la ilaaliyaa kala fogaashada waa in la ilaaliyaa goobaha ganacsiga ama goobaha la iskugu imaanayo waa inay ka fogaadaan bulshada ee ilaaliyaan badqabkoodii aadaan u soo dhaweynayaa hawsha wanaagsan ee 17 degmo ee wadaan sidaad arkaysaa wacyigelintan waa mid joogto ah ee horay loo sameeyay maamulka gobolka Banaadir haddana tii mid lamid ah ka baaxad weyn oo wasaaradda diinta iyo qaafta ee gobolka Banaadir ay wada sameynayaan waad arkaysaan bulshada marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa haday isku arkaan cudurkaaseti inaysan ku haysanin guriga ee qofka ay ku arkaan ee la xiriiraan nambarka 449 oo loogu talagalay ka hortagga cudurka coronavirus sidaad arkaysaan xarumaha badqabka ama daaweynta loo geynayo bulshada waa inay sida dhaqsiyada badan ee la xiriiraan maamulada degmooyinka gacan ka siinayaan u fududeynayaan maamulada degmooyinka sidii qofkaas loo geey lahaa goobtii caafimaadka waxaan rabaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir amaamiirta ee bixinayaan waaxyaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda diinta iyo qaafta iyo maamulka gobolka Banaadir wacyigelinta si sax in loo qaato qof walba la gaarsiyo qof walba guri walba codkaas inuu gaaro shakhsi walba inuu gaaro cid walbana ay sida loo sheegay ugu faa'iideystaan waa idinku mahadcelinaynaa sidaad arkaysaan maanta waad wada arkaysaan bulshada sida shalay ay ahayd maanta inaysan ahayn ee fahmeen cudurka inuu yahay cudur jiro ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ka magan galaynaa in quraanka la wada akhristo in ducooyinka rasuulka kaleey salaam la qaato in wacyigelinta caafimaadka ee dhaqaatiirta bixinaya ee la qaataan marka aad u soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inay sidaas ay magaalada adduunka sidoo u baaxadda ugu rafaadiyay inaan ka nabad gali doono insha Allah haddaan qaadano way laakiin wacyigelinta socoto waa mahadsantihiin